Hada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed ku saabsan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee la qorsheynaya inay Muqdisho ka dhacdo 15 bishan ayagoo ka digay in dib u dhac dambe aysan la imaanin. Saaxiibada beesha caalamka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan ku dhawaaqista guddiga qabanqaabada baarlamaanka ee ah in doorashada madaxweynaha ay dhacdo maalinta Axadda ayagoo bogaadiyay sida ay ku socoto diiwaangelinta musharaxiinta iyo diyaar garow kale ee loogu jiro inaan dib dambe u dhicin waqtiga ka dambaysta ee doorashada. Sidoo kale waxay sheegeen inay dhiirigelinayaan horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo diyaar garow kale ee loogu jiro in ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka. Qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa ugu dambeyntii lagu yiri waxaan ku boorinaynaa madaxda Soomaaliyeed inay si degdeg ah nabadoon oo kalsooni ku dheehan tahay ay ku soo gabagabeeyaan marxaladaha ka dambaysta ee geedi socodka doorashada si loogu soo wada jeesto arrimaha dalka iyo dowlad dhisidda ee mudnaanta leh. Waxa qoraalkan beesha caalamka ku soo baxay ee ku soo aadeysa xilli maanta ay ku eg tahay isdiiwaangelinta musharaxiinta waxaana ilaa iyo hadda la diiwaangeliyay musharaxiin kor u dhaafaya 40 ayadoo saacadaha soo socda la filayo in kuwa kale ay qaataan shahaadada musharaxnimo. Musharaxiinta waxaa ka mid ah madaxweynaha hadda xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaal hore Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre, madaxweynayaal maamul goboleed uu ka mid yahay Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland, xildhibaano iyo siyaasiyiin kale oo marar badan ka soo muuqday doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay. Waxaana lagu wadaa in maalinta beri in hoolka xarunta afasiyoone oo halka lagu qabanayo doorashada madaxweynaha ay ka dhacdo hadal jeedinta iyo soo bandhigida musharaxiinta waxqabadkooda haday ku guuleystaan xilka madaxweynaha Soomaaliya ay 4 sano ay soo socoto. Shacabka Soomaaliyeed ayaa aad u hadalhaya diyaar garowga loogu jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo 4 sano mar la qabto taasoo inta badan shacabku arkaan isbedel aan meel la gaarsiineen isla markaana ay u baahan yihiin inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah si ay u doortaan qofka wax ka qaban lahaa baahiyahooda iyo dalka si uu gaarsiiyo heer isku filnaanshaha si uu u tartamo wadamada horumaray.